بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم أخيارتنا لا سعوتي الكيمبا ميل كستوا دنيا كجوكتان دولة إيران هايت ولي وحال الصورين يا قسارة إنه كسو غارة يدقالك يلو إسرائيل قردو أي كتنا واقدا إنه دلين متك ميدا سراكيشي وقسر سرسي يدقالك هدبا سيدي اللو بيكسيدي سرقالكاسي وارك لحقا كنعي إسرائيل سبايين warbixin ayaan arrintaa idinkaga hayaa oo aan barnaamijka ku faaqidaya ka waran haddii aan ku iraado waxyaabihii sababi lahaa in lagu dilo malakameedkaada mararka qaar sabab looga dhigi lahaa waxay ku jiraan jeebadaada iyo waliba kaamirooyinka wadooyinka lagu xiray taas oo loogu talagalay in amniga traafikada iyo guud ahaan amniga magaalada lagu xaqiijiyo taas oo sahli karaysa in cadowgaada uu ku dhex fariisto sanado badan ayaa haddaba la qorsheynaya dilka ayatullaahi cali khamani ninkii hogaaminayay jamhuuriyadda islaamiga Iran ee 28 bishii Febraayo la dilay unuga 8200 ee Israa'iil u qaabilsan militariga sirdoonka hay-adda Mossad la yiraahdo iyo CIA-du waxay ka shaqeeyeen qorshe dhameystiran oo muddo sanadaha socday qaarkood waliba waxay yiraahdeen innaga oo aan tagin Tehran ayaan u baranay sida magaalooyinka Qudus iyo Washington haddaba sidee wax u dhaceen dilka ayatullah cali khamanina sidee uga shaqeeyeen sirdoonka dowladda Iran maxaa laga baran karaa marka la fiiriyo dowladaha ay suuragal ka tahay dagaalada inay galaan dagaalka tiknoolajiyadu waxa uu noqday mid ka horeeya kan hubka la isku dilo ee caalamka warbixin sirdoon ayaa haddaba banaanka imaanaysa dhinaca kale marka la fiiriyo Mareykanka iyo waliba dowladda Iran kee suuragal noqon karaya inuu ka dhamaado kaydka hubka iyo gantaalaha marka la fiiriyo dagaalka dabada dheeraan kara ee soconaya maalmihii la soo dhaafay maxay tahay sirta aadan ogeyn ee dowladda Iran sababi karaya dagaalkan inay ku gacan sareyso marka la aqriyo xogaha sirdoonka furan ay ku sameynayaan taxliilinta iyo analysiska barnaamijka ayaan kuugu hayaa oo aan ku soo bandhigayaa sheeko suuragal ka dhigi karaysa dowladda Iran in lagu qasbanaado in miiska wada xaajoodka lala fariisto hadda waxa ay dilimihii rajooyinka Mareykanku ka gudbayaan in xukunka laga tuuro kacaanka islaamiga ah iyo wadaadada shiicada ee hogaaminaya dalka Iran hadda waxa loo baxayaa sidii looga fakari lahaa iyadoo dagaalku uusan dhigbax badan oo dhinaca hubka uusan dhicin ma la fariisan karaya dowladda Iran yaasa ka dhaadhicin karaya dalkaasi waa Tehran inay miiska wada xaajoodka soo galaan xilli cali laarajani wali uu leeyahay la isma gaarin oo faanoole fari kama qodna Lebanon waxa ay dareemaysaa duqeyn kala duwan oo ciidamada Israa'iiliyiintu ay ku hayaan halka loo yaqaan koonfurta Beirut waxa la soo warinayaa qasaare inay ka dhasheen duqeymihii ugu dambeeyay ee saacadihii la soo dhaafay khiyaarta ay nala socotay midowga Yurub ma laga yaabaa dagaalka in uu ku soo biiro wasiirkii hore ee gaashaandhigga dalkaasi Austria ayaa waxa uu soo saaray war isagoo oranaya midowga Yurub waxa suuragal dagaalka in ay ku biiraan laakiin waa goorma mase ku filnaan karaan midowga Yurub darahooda gobolka bariga dhexe inay difaacaan maxay tahay waxyaabaha qalqal gelinaya midowga Yurub dagaalkaasi in ay ku soo biiraan waxaan sidoo kale eegi doonaa xogtii ugu dambeysay duqeymihii ka dhacay meelo kala duwan oo ka mid yahay garoonka Xamaada ee dalka Qatar dalka Cumaan oo la beegsaday Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Imaaraad ee dalka la yiraahdo Iran oo duqeymaha sii xoojinaya maalintii afraad mustaqbalka dagaalkan sidee loo saadaalinayaa maxayse tahay haddii dagaalkan aan la joojin waxa dhici karaya marka dhinac kasta laga eego amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda qaramada midoobay afkii ayaa joogda gabay dowladda Iran waxay leedahay la isma gaarin oo faanoole fari kama qodna soo baxaya xog ku saabsan hanaanka loo qaarajiyay ayatullaahi cali khamani ninkii muddada dheer murshidka sare u ahaa dowladda Iran kaas oo lagu dilay duqeymo 28 bishii Febraayo aynu ka soo gudubnay maalmo yar koor lagu qaarajiyay magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran wadaad mufakkir siyaasi ah ay waliba nin mayal adag oo go'aanadiisu ay banaanka yaaleen
hadalyaqaan aan ka gaban waxa uu waddankiisa iyo shicibkiisa ay u baahan yihiin nin ka gorgortamaya qadiyadaha waaweyn ee waddankiisa iyo weliba ninka lahaa weedha ugu dambaysa ee go-aan qaadashada dalka Iiraan ayuu ahaa dhowr iyo 30 sano uu hogaaminaya waddankaasi ugu dambeyntii waa la soo afjaray markii si wada jira dowladaha Mareykanka iyo nidaamka Israel ay duqeyn ku dileen ka dhacday magaalada Dahraan ee caasimadda waddanka Iiraan goobta la weeraray oo majmac al-murshid al-a'la la yiraahdo oo dowladda Iiraan waxa ay sababtay tani in ay bedesho hanaankii fikirka siyaasadda ammaanka iyo waliba geedi socodka guud ee nolosha ee gobolka bariga dhexe 4 maalin oo madow ay dhinac kasta oo kamid ah wadamadii khaliijka iyo sidoo kale Iiraan waxa ay la kulmayaan gantaalo aan loo meeldayn kaasi oo dad fara badan ku qasbay bogga iyo waliba dhulkayna isla helaan dowladaha qaar waxa ay taxliilinayaan hanaanka awoodeed ee waddanka Iiraan gantaalaha xoog leh oo ay tuurayaan iyo waliba sida dalka Iiraan ay u aarsan karaan weed kasta oo ka timaada madaxda sare ee dowladda Iiraan waxay noqotay mid sidii loo qorsheeyay u sii socota oo waddankaasi aan hadda ka fogaado janaladii diblomaasiyadda loona baxay awoodii qoriga iyo waliba muruqa haddaba telefishinka Al Jazeera oo xiganaya saraakiil kala duwan iyo macaahidyo dhinaca sirdoonka falanqeeya waxa ay tilmaamayaan in dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei in la dilo aanay iska iman si fudud hase ahaatee sanado laga shaqeynaya kaartooyin iyo dhismo qorshooyin ah oo la doonayo in lagu qaarajiyo ninkaasi inkasta uu dalkiisu ahaa mid u baahnaa fulin siyaasadeed haddana sirdoonna 3 ayaa isgarab istaagay kan ugu daransa waxa uu ahaa oo aysan warbaahintu qaban unika sirdoon ee military ee Israel la yiraahdo 8200 kaas oo u dhacay hanaankii tiknoolajiyadda kaamirooyinka wadooyinka kuwa taleefanada iyo sidoo kale goobaha ay degan yihiin ilaalada Ayatollah Ali Khamenei halkaas oo sababtay in laga taxraacay ninkan in la helo kadibna la qaarajiyay hay-adda sirdoonka dibadda ee Israel ee Mossad la yiraahdo iyo hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-du saddexduba waxay ka shaqeynayeen sidii qorshahan loo dhisi lahaa sargaal sare oo la hadlay warbaahinta iyadoo xogtan lagu dhisayo khubaro kala duwan war ay sii daayeen uu baahiyay wargeyska la yiraahdo The Financial Times ee ka soo baxa dalka Ingiriiska waxa uu leeyahay sirdoonku waxay yiraahdeen sida aynu u baranay magaalooyinka Qudus oo dhulka Falastiin ah qaybaha Israel ay haysato iyo waliba magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka ayaan u baranay inagoo aan cagta saarin ciidda magaalada Dahraan taas oo sababtay markii ugu dambeysay markii la helay amarka fulinta weerarka lagu qaarajinaya Khamenei oo ka yimid Trump in sidii u ahayd loo fuliyo taas oo ugu dambeyntii dhalisay guulo istiraatiiji ah meelaha sida gaarka ah loo taxliiliyo waxa kamid ah goobaha iyo wadooyinka ay marayaan ciidamada iyo waliba ilaalada madaxda sare kaamirooyinka iyo waliba xogaha sirdoonka waxay akhriyeen mas'uulka la ilaalinaya iyo askarta la socda kuwaas oo la bartay wajiyadooda oo muuqaal kasta oo kaamirooyinka ay qabtaan khubaro gaar loo dirayo oo la taxliilinayay ciwaanada guryaha ilaalada xitaa waxa la daba galay ilaaladii gaarka ahayd ee wajiyadooda la helay ee Khamenei la socday iyo saaxiibadiisa sare guryaha ay aadaan meesha ay degan yihiin iyo magacyadooda waxaana sidoo kale la helay wadooyinka ay had iyo gooraale isticmaalaan saacadda saxda ah oo ay shaqada tagaan iyo saacadda ay ka yimaadaan iyo meelaha kafeega ay ku cabaan intaba waxa sidoo kale la akhriyay jadwalka shaqooyinkooda taas oo sirdoonka reer galbeedka iyo waliba tan Israel u sahashay in ay tallaabooyinkaasi qaadaan haddaba su'aalaha la isweydiinaya waxay tahay maxaa laga baran karaa arrintan marka si gaar ah loo eego kaartooyinkan dagaalka ee la dejiyay waliba qorshooyinka dhacay isla wararka Iiraan haddii aan sii eego waxaad moodaa dhinaca kale in uu dagayo waxana haatan soo baxaya dowladda Iiraan inay u muuqato dagaalka madaafiicda iyo gantaalaha ku hoobanaya waddankeeda inaan looga adkaan karin khubarada qaar iyo waliba hay'adaha taxliilinaya waxay leeyihiin kumay ka dhammaan karaan gantaalaha ay hayaan Mareykanka mase waxa ay dhibaatooyin soo gaari karaan dowladda Iiraan oo ay ka dhammaan karaan gantaalaha baalistiga ay hayaan
haddaba xogtan uu qoray wargeyska la yiraahdo ama telefishinka la yiraahdo The Sky News ee dalka Imaaraadka laga leeyahay waxa uu leeyahay dagaalka gantaalaha ee u dhaxeeya Iran iyo dhinaca kale ee ka midaysan yihiin Israel iyo Mareykanka iyo xulufadooda ayaa galay marxalad istiraatiiji ah iyadoo la isweydiinayo cidda marka ugu horeysa ay ka dhamaanayaan kaydka sawaariiqda ay hayaan tan iyo markii dagaalku uu bilowday Sabtidii aanu ka soo gudubnay waxaa si istaba jooga loo arkaya gantaalo Iiraani ah oo ku hoobanaya ama la burburinayo magaalooyin kala duwan oo ku yaala Khaliijka oo ay ka mid yihiin Israel, Urdun iyo dalal kale oo ka tirsan dowladaha Khaliijka boqolaal gantaal iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ayay dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ay fasaxeen sida laga soo xigtay shirkadda xog ururinta sirdoonka furan ee la yiraahdo Mental Wall labadii maalmood ee ugu dambeeyay ama ugu horeeyaan ilaahdee dagaalka Dahan waxa ay riday in ka badan 400 oo gantaal iyo qiyaastii 1,000 diyaaradaha nooca isqarxiya ah oo droniska loo yaqaano kuwaasi oo lagu cabiray dalalka Imaaraadka Carabta waa cardaadiqada laga dhigay Dubai marka aad fiiriso sida loola dhaqmay dowladda Kuwait, Bahrain, Qatar, Urdun iyo Oman marka laga reebo gantaalada lagu weeraray Israel waxay noqdeen kuwa si weyn loo arkayay dhibaatooyinka ay geysteen nidaamyada difaaca oo si buuxda loo adeegsaday ayaa sababi karaya qaybo kamid ah gantaalaha dowladuhu inay burburiyaan halkan waa meesha dowladda Iran ay ka helayso fursadda dagaalka suuragelin kara in ay ku gacan sareyso sida qubarada hay'adda Mental Wall taxliiliyay ay tilmaamayaanba warbixintu waxay leedahay si loo xoojiyo weerarada Mareykanka iyo Israel iyo dalalka Khaliijku waxay si xoogan u adeegsadeen nidaamyada difaaca cirka oo ay ku jiraan THAAD, Arrow 3 iyo Patriot taliyaha guud ee ciidamada dalka Mareykanka ayaa sheegay in nidaamyadan ay si wada jir ah u qabteen boqolaal gantaal oo ka socday ciidamada Mareykanka iyo xulufadooda isagoo xusay siday u shaqeynayaan sidii loo qorsheeyay haddaba maxay tahay sirta ka dambaysa dowladda Iran oo weerar ah in gantaalaheeda ay noqonayaan kuwa aan si sahal ku dhamaan khabiir military oo Mareykan ah oo ahaa generaal oo lagu magacaabo Scott Bennett ayaa sheegay in natiijada ay ku xirnaan karto dhinaca kaydka cidda rasaastu aanay ka hor dhamaan wararka qubarada ay sii daayeen ayaa tilmaamaya in Iran ay wali haysato in ka badan 2,000 oo gantaal oo awood u leh in ay gaaraan Israel marka lagu daro gantaalada ridada gaagaaban ee Shihab 2 iyo waliba Fatah 313 dhinaca kale Israel iyo Mareykanku waxa ay beegsanayaan goobaha laga rida gantaalaha iyagoo adeegsanaya xog sirdoon oo sax ah ujeedadu waa in la burburiyo qalabka laga tuurayo gantaalaha kaasoo uga daran gantaalaha iyo sawaariiqda u imaanaysa qubarada waxay tilmaamayaan markasta inaad weerar noqoto halka aad difaac ka geli lahayd ayaa muhiim ah tani waa midda u saamaxaysa dowladda Iran inay dhabihii guusha ku sii socoto qubaradu waxay tilmaamayaan in weeraryahanka dagaalku uu marka hore qabo faa'iidada ugu sareysa maadaama gantaal kasta oo plastic ah uu u baahan yahay in looga hortago ugu yaraan 3 ama 2 gantaal oo difaaca si loo hubiyo in la burburiyo taas oo macnaheedu yahay kaydka difaaca ayaa si dhaqso ah u yaraanaya haddii weerarada Iran ay sii socdaan si kastaba ahaatee saraakiisha Mareykanka waxay sheegayaan inay hayaan kayd ku filan oo ay ku sii wadi karaan dagaalka muddo dheer Qatar ayaa wali taagan taas oo muujinaysa in dowladda Iran ay dagaalada iyo waliba weerarada sii wadi karaysa daqiiqad kasta dowladda Iran waxaa suuragal ah marka la eegay Israel iyo Mareykanku inay wali qaadi lahaayeen tallaabo horumar ah oo dagaalka ah marka laga reebo inay beegsadeen madaxdii sare ee dalkaasi Iran haddana waxa lagama maarmaan u ekaanaya wadamada midowga Yurub inay dagaalka ku biiraan tan oo haddii ay dhacdo ay ka dhignaan karayso in taariikhdu 20 sano kadib ay dib isku celinayso taasoo dib loo xasuusan karayo weerarkii 2003 lagu qaaday jamhuuriyadda Ciraaq ee uu hogaaminayay Saddam Hussein halkaas oo ciidamo huwana oo ay hogaaminayeen Mareykanka iyo waliba dalka la yiraahdo Ingiriisku ay weerar ku qaadeen ugu dambeyntiina xukunka looga tuuray Saddam Hussein
dalkii haybadda lahaa ee ciraaqna uu burbur soo gaaray. wasiirkii hore ee gaashaandhigga dalka Austria Herbert Schimber ayaa sheegay in midowga Yurub uu door muhiim ah ka qaadanayo wajahida weerarada Iran, isaga oo ka digay in ay sii kordhayso xiisadda isla markaana ay sababi karayso wadamada Yurub inay dagaalka haatan u xaydanayaan. waraysi gaar ah oo ninkan siiyay telefishinka Sky News Arabic, Schimber waxa uu ku falanqeeyay istiraatiijiyadda Iran, mowqifka midowga Yurub iyo suurtagalnimada isbedel siyaasadeed oo ka dhaca dalkaasi. midowga Yurub oo qaaday mowqif midaysan buu yiri waxay iminka u muuqataa in tallaabo istiraatiiji ay dhigan tahay. wasiirka hore ee wadanka Austria waxa uu leeyahay isutaga Yurub waxa ay qaadanayaan mowqif rasmi ah kaas oo ay taageerayaan 22 dal, isla markaana ay ka go'an tahay inay la tacaalaan wixii horumarka waafaqsan, isla markaana ay ilaaliyaan jiritaanka iyo sugnaanta qaanuunka caalamiga ah. inkastoo dalalka Faransiiska iyo Jarmalku ay ka soo horjeesteen dagaalka cambaareeyeen weerarka lagu qaaday dowladda Iran, waxa uu tilmaamay haddii danaha midowga Yurub la taabto inay ka dhignaan karayso in weerarada ay ku biiraan wadamadaasi. dowladda Iran ayaa lagu soo waramayaa in laga dilay sargaal sare kaas oo aan magaciisa ilaa iyo hadda la shaacin. nidaamka Israel ayaa tilmaamay duqeyn ay ka geysteen bartamaha magaalada Tehran inay ku dileen sargaal aad u sareeya oo ka tirsan militariga iyo maskaxda ciidamada dalkaasi Iran, hase haatee ay beegsadeen saacadaha soo socdaan ay qorsheyn doonaan magaciisa in ay sii daayaan. wadamada Cumaan, Imaaraadka Carabta, Qatar ayaa weli wajahaya iyo Sacuudiga weeraro uga imaanaya dalka Iran, taas oo muujinaysa inay xiisadu aad u sii kordhayso oo maalintii afraad dagaalku uu yahay weli mid aan sahlanayn si degdeg lagu xalliyo. maalintii afraad ee dagaalka u dhaxeeya Israel iyo Mareykanka oo isku dhinac ah iyo Tehran oo dhinaca kala taagan ayaa waxa uu sababayaa in si weyn loo bartilmaameedsado wadamada Khaliijka. ila wareedyo la hadlay telefishinka Al Arabiya ee dalka Sacuudiga laga leeyahay ayaa sheegay in qaar ka mid ah weerarada lagu qaaday Sacuudiga ay ka yimaadeen dhinaca Ciraaq, isla markaana boqortooyadu ay si dhow ula socoto xaaladda amni ee halkaasi, iyadoo xalay la weeraray safaaradii Sacuudiga ee Mareykanka ku lahaa halkaasi. hase haatee Trump uu hadlay waxa uu ku dhawaaqay in jawaab lama filaan oo awood badan ay ka bixinayaan. wasiirka amuraha dibadda ee dalka Qatarna waxa uu sheegay in la fashilay isku dayo la doonaya in lagu garaaco garoonka Hamad International Airport. afhayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee dalkaasi Majid bin Abdurrahman Al Ansari ayaa sheegay in weerarada Iran ay ku koobnaayeen oo kaliya xarumo military, balse haatan ay u tallaabayaan dhinacyo kala duwan. meelo ay ka mid yihiin Bahrain xiisad ayaa ka taagan, iyadoo dad fara badan ay isugu soo baxeen wadooyinka Manama oo ay doonayaan inay xukunka ka tuuraan boqortooyada Sunniga, maadaama 60% dadka wadankaasi ku nool ay ka soo jeedaan caqiidada Shiicada. hase haatee ciidamo ka socda wadanka boqortooyada Sacuudiga ayaa isku dayaya boqortooyadaasi taagta daran ee Bahrain in la badbaadiyo. Cumaan waxaa weerar lagu qaaday dekada Daaqum, halkaasi oo lagu soo waramayo in ay waxyeello ka soo gaareen. dhinaca kale Imaaraadka ayaa waxa ka kacay baa la yiri dab xoogan ka kacay Faraja kadib markii gantaalo lagu dhuftay. xiisadu waa sii kordhaysaa, dhinacyaduna waxay sameynayaan duqeyn. qiyaarteena la socotay intaan ayaan ku hakinayaa barnaamijkan falanqaynta iyo faaqidaadu waa soconaysaa. ku soo biira barnaamijka Barrow Show oo channelkan cusub subscribe saara. dhammaantiinba aad baad u mahadsantiin.